بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa dhika harja sublocation dhika harja dispensary way dhismada aan agtaaganaho guriyahan waxaa la dhisay 2013 ilaa yooman maanta laga joogo wali waxaan u malayn laguma shaqaynin lama furan waa iska xirnaayeen wax isticmaalay ma lahayn dhakhtar ma lahayn daawo waligood lama keenin waa iska dhisnaayeen structure iska dhisan oo meeshan ku yaal ahaan wax dadweyne hadda u hayeen ma jirin laakiin maanta alxamdulillah MCA dhika harja yaa wuxuu la imaaday dhakhtarka waa kan taagan daawadii dhika harja waatan wuu keenay wuu ku mahadsan yahay waxaan filay dhika harja hadda wax ka dambe isbitaalkeeda inuu shaqayni doono dadka dhika harja ay wadadan ay sii marayaan ilaa galmagaala ama haluuq ay aadayn ay ka maarmi doonaan marmarka qaarkood warka roobka la jiro wadada aan soo marayna gaari ma marayna bilcaanta inta ilmaha xambaarsatay iyo biyaha la ku goynaysay baahida iyada u qabto inay galmagaala ilmaha daawo loogu doonto hadda waxaan ku mahadinaynaa dawladda county aan ku mahadinaynaa MCA aan ku mahadinaynaa inuu dhakhtar iyo daawo isla socdaan marka u horo dhika harja dispensary asaga uu keenay wuu mahadsan yahay waxaan soo dhaweeyay chairmanka galmagaala isbitaalka health center oo wadi galmagaala iyo ilaa gubis iyo ilaa dhika harja kulli hoos imaanaysay oo hadda maanta waxaan malayn galabta waxay ka bilaabato igan dhika harja inay ka go'i doonto laakiin dardaarankiisa yaan rabaa inuu asagana koob iyo laba uu ka soo jeeday meeshan waxa u malay soo jeef u sheegay hadma wareejin hayi shaqada markay bilaabato oo dhakhtarka uu soo fadhiisto ayay noqon doontaa oo ay iska dooratiin board oo chairman ay yeelatiin committee ay yeelatiin marka unba aniga wareejin doona marka aad baan ugu faraxsanahay maadaama uu na kala qaaday MCA-ga oo baahidii dhika harja oo xagga caafimaadka oo ilaahay baa daboolay uu soo daboolay shaqo fiican buu ku qabtay uuna ku mahadsan yahay istaxaayada daawada waadna hortaalo dhakhtarkiina waa kan waa arrin aad iyo aad u fiican wax kaloo hadda dhika harja mid u darna waxa la yiri nafta bixi jirin biyo nolosha caana saameen caafimaadka u muhiimsan caafimaadka una baahi dare marka inta ba ku soo anagoo taagan hadda meeshan dhika harja la yiraahdo dispensary-ga yaan hortaaganahay waxaan u malaynay dispensary-ga iyo maternity-ga dawladda county-ga baa horaan noo dhistay haddana ida daawo noo keentay waxaan u malaynay ruux hadduu maqnaa muxuu ku maqnaa lama dhaha MCA-gaana noo keenay daawadaanu ku hasana ku mahadinaynaa baahi weyn oo zaa'id ahna waa loo qabay waxaan u malayn meeshan dhika harja 15 iyo galmagaala 15 kiila oo yaan noo jirta gaari lama qabo bilcaanta ilmaha inta ka qaadanaysay meeshaas tagaysay baahida la qabo waxaan u malayn la dhahay waxaa la soo wadaa dhakhtar baa la soo wadaa bilcaanta dhika harja saakay halka saac soo umatay nisiibana MCA-ga dhaxda galay waqti had imaadna waa maghrib sidaas ku kala galbadeen aadaan ugu mahadinayna maadaama ugu horan ay noo dhistay haddana ay daawo noo keentay aan u baahneen haddana hor sii wadaan oo daabadii iyo dhakhtarkii iyo dispensary-gana sana wuxuu u baahan yahay wuxuu waa la hagaajiyay waxa darishada samal khayr halawsan asagana keetiyihi iyo wixii meesha lagu fariisanay iyo asagana u baahan yahay wuuna noo hagsan yahay dispensary-ga waana ku mahadsantihiin dawladda county ku samahadinayna ilaahay baan ku mahadinaynaa in charge galmagaala بسم الله الرحمن الرحيم كل هاو ملين مقعي وقرنيسين عبد الرزاق فاسيلتي انشاج ما انت هاو مليني فرحد وين بينوتها انا ودن ما دام walaalkeen uu noo soo xarbiyay uu noo keenay dhakhtarkan uu noo keenay marka dhika harja horta waa farxad weyn inaan naga go'dina waa wax waqti dheer aan soo wadnay marka dhakhtarka in la shaqeeyo oo si fiican loo soo dhaweeyo waa mid idinka go'an saad arkayna hadda maxaa la dhihi jiray meeshan wax infrastructure ah ma jiro marka waxaan ka codsanaynaa wali MCA-ga inuu noo qayliyo si meeshan loo haweeyo intaas ka soo waxaa laga yaabaa in dhakhtarka galmagaala uu xiriir weyn ku yeesho oo anaga uu nala shaqeeyo wixii referral ah iyo wixii system kala dawladana anaga u bandhigayna dhakhtar waxaan ku sheegayaa meeshan waxaa jiraan CHB oo aad kula shaqeyn doonaan oo anagana madaxa u nahay marka soo dhawow محل يجري شيف كان أدب وما يسني هاي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاهم الله خيرا. أدب وما يسني هاي موشما إلى بما مهتم سبحانه وتعالى مركب كوات مركب الوقت سام مهتم. محيلي روب فربضن يوحو صومري سفر دير يوصوغله
waqti aad waxaan u taaganahay haweenimo maanta dhasaan sugayni roobka gaarigaas roob fara badan buu soo maray aad aan ugu mahad celinaynaa jazaahullahu khayran shaqo fara badan uu soo qabtay isbitaalkii maanta uu noo furay maxaa yeelay berore ballantii uu qaade uu noo qaaday si fiican buu uga soo bixi ballantii uu qaaday aniga naftay ugu yiraahday maxaan rahay isbitaal inaan idin furo midda koowaad horta waxaa u daran adlama waxaa u daran horta biyo wey naf biyo ayaa ugu daran waagii uu socday loolaha u waday ninkii meeja fure asuu ahaa oo maarata ilaahay sabab ooga dhigay mashiinta boqolka hadda la qaatay oo la haleeyey asaa fure isbitaalkiina hadda maanta asaa fure jazaahullahu khayran waxaa malay isbitaalkan waxaa la dhisay dowladdii nadiif shantii hore nadiif uu ku jiray yaa la dhisay haddii la dhisay dowladda intaa isbitaalkan uu iska xirnaa haddana maanta iyagaa haddana fureen khayr allaha siiyo oo u mahad celinayna dowladda ayadana uu ku jiro khayr allaha siiyo aad buu maaragtay yuu u soo dadaalay haddana insha allahu tacala waxaan doonaya inuu sii dadaalo uu dadaalka sii wado insha allahu tacaala marka intaas aar inaan maaragtay aan ugu mahad celiyo khayr allaha siiyo safarta uu noo soo galay khayr allaha ku siiyo nabadna allaha ku celiyo insha allahu tacaala aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u malaynay saakay xilligan waqti ka horaan rabnay aan isku wadnay inaan dhikaarja imaano laakiin ilaahay muxuu qadiray inaan maqrinimadan aan imaano marka saakay ilaa hadda aanoo taagantiin aana sugayseen ma hadda ilaahay subxaana wa tacaala awaalkeena ha gudo ana kolley bilaadan anahay awaalkeena ma gudi karno midda labaad maanta waxaan taaganahay dhikaarja dispensary siduu chiefka sheega waaye dhikaarja waxaa la asaasay ama guryahan la dhisay 15 years ama 10 years ago beriga ilaa hadda infrastructure buildingkiisa bas taagnaa dhakhtar ma san jirin dowladana waxaa u malaynay revolutionka waxay bilaabatay county government 2013 2017 iyo 2022 2013kii MCA waa jooga meeshan ilaahay uma qorin inuu dhakhtar meeshan uu keeno ama isbitaalkan uu furo 2017 ka imaatay nin baa 5 sano asagana meeshan jooga asagana ilaahay uma qorin marka anaga dadaal fara badan iyo xarbi fara badan aan muujinay inaan isbitaalkan dhikaarja aan furno dispensarygan su dhikaarja ay u helaan dispensary agtooda ku yaala oo mar walba xilli alla xilliga u baahdaan ay iska daaweyn karaan marka ilaahay uu nagu guuleeyay dadaal badan ka dambe ilaahay uu nagu guuleeyay marka waxaan leenahay kulli waan aragnay isbitaalkan u jeednaa baahidiisana waan aragnaa waxaan malaynaa hadda baahida ugu weyn waxay tahay dhakhtar iyo daawo waxaan malaynaa daawo halkeena taallaa waa keena dhakhtarna waa keena dhakhtarkan waxaan malaynaa meeshan buu joogi dhikaarja inagani la soo qoray dhikaarja dispensary magaciisa wuxuu ku qoran dhikaarja dispensary inuu ka shaqeeyo laakiin hadda meeshan haddaan aan beri salaad la furi ma la furi karo waayo kursiga u hore lagu fadhiisanayo ma laha marka anaga ii taallaa iyo county government ka u taallaa sida haddana meeshan kursi loo keen lahaa dayactir loo sameyn lahaa waan dhex wareegnay baahidana waan aragnay waxaan malayn baahida ugu weyn oo meeshan hadda ka jirta waa equipment wax la dhaho equipmentka waxaa waaye waa kuraasti waxyaalihii loo baahnaa oo dhan yaraayeen waay marka insha allahu tacaala bartan weyn intaan ka sugayno dowladda county government aan ka sugayno waxaan sameynaynaa inaan kursiya miiski iyo kursiya dhakhtarka inaan u keenno wiigan soo socda insha allahu tacaala anoo isticmaali jeebkayga kos haddaan dowladdan ka sugi waqtiga qaadan process dheer qaadan marka dhakhtarka waxaan u sheegaya waxaan ku leeyahay next week insha allahu tacaala wixii bar aan kusii bilaawi lahayd kursiyihii iyo miiska aan kusii bilaawi lahayd insha allahu tacaala waa lagu soo hagaajino waana lagu soo dhiibi wixii kale kos waxaa jira meeshan pharmacy ma laha daawadan hadda meel la saaraa la raha shelf loogu talagalay in daawada la saaraa jirta meeshan shelf ma laha because isbitaalba ma jirin marka ballantii koowaad waan aan qaadnay waxay ahayd inaan dispensary dhikaarja aan ka furayno galmagaal aan dhakhtarin aan keenayno birta safaricomna aan keenayno ECD teachersna aan keenayno waxaan malaynaa iskuulkan hadda buugal aan u wadnaa box buugal aan u wadnaa primaryga dhikaarja primary laba bilood ama bil ka hor waxaan u qornay macallin oo ECD ah gabar cidda ah loo soo qoray inay ka shaqeyso iskuulkan gabadha maternity way jirtaa way umushe insha allahu tacaala iyadana waxaan rajeynayna iskuulka inay imaato buugtanna waxaa wax ku aqrisanaya wax ku baranaya horay dhikaarja waxaan u malaynay ballanta aan qaadnay 3 un bay ahayd 3 daran waa ka soo baxnay waa in birta la helo safarka waa lagu hadlayaa dhikaarja waa hadlaysiin galmagaala waa laga hadlayaa gubis waa laga hadlayaa midda labaad waxay ahayd istaalkaas galmagaala bar dhakhtar baaritaan in la keeno waayo ana dadkayna inta laga qaada ilaa Sangail waa la geeyay baaritaan darteeda hadda laakiin wax dambe oo maamad laga qaaday dhikaarja oo Sangail la geeyay ma laha dhakhtarkii baaritaanka uu jooga galmagaala waan keenay
ninka baaritaan u baahdo galmagaala u tagi galmagaala yaa laga baari xanuunkiisa laga ogaani midda u dambeyso midii saddexaad waxay ahayd isbitaalkan arrintiisu waan ka dhammaanay aniga dhikaarja ward horta wax balloon kalo dhaxdayna taalo saddexdaa ka may jirin saddexdan aan waan fuliyay kolley ilaahay hortiisa ilaahayna shaahid buu ka yahay dhikaarja iyo wixii jooga meesha geedka garaskana shaahid buu ka yahay marka aniga ballanta waan ka bixi had ka dambe aan qaadi doono qaar 2027 marka la gaarana kolley nin walbo go-aankiisa asaga iska leh marka hadalka ma badinayo waxaan leenahay dhakhtarkan hala soo dhaweeyo waxaa anaga ceeb ku dhignay dhakhtareen waan keenaynaa laakiin dhakhtarka aan keenna waa nagala qaata waa nagala ceshadaa yaa naga qaataa dad anaga lamid ah dad dhikaarja sideed oo kale dhakhtarka inta jooga laga qaaday meeshaasaa la geyni sababta uga cararayo meeshan oo meesha uu aaday maxay tahay xiriir la'aan xiriirka waxaa la rabaa dhakhtariinta iyo communitiga inuu xiriir ka dhexeeyo kaas oo dhakhtarka in la ogaado xaaladiisa meeshuu jiifan la ogaado wuxuu cun lahaa la ogaado laakiin haddaa taro kana dowladdu mishaar siisaaye shaqadiisa ha qabsado meeshan na ogno dhikaarja waxay ka jiro hotel hataa duur haddaa u doonto qada aad doonto laga helaynin dhibkeeda leedaha marka waxaa la rabaa dhikaarja ismuujiha waxaan rabnaa insha allahu tacaala isbitaalkan galmagaala hadda waa level 3 bar inaan subcounty hospital aan ka dhigno aniga waxaa ii dhiman gubisna insha allahu tacaala sanad hadda ka dambe ilahay uu ii gaarsiiyo waxaan ku dadaali si iidana dispensary looga dhisi lahaa budgetka u hore oo county government ay qaban doonto gubisa laga dhisa dispensary waxaan rabnaa gubisna dispensarygeeda inay aado dhikaarjana dispensary galmagaala uu noqdo referral bulogolna dhakhtarkeeda waan wadnaa asagana marka bulogol way shaqeyni dhikaarja way shaqeyn galmagaala way shaqeyn marka waxaan rabnaa cabdirasaaq shaqada inay u fududaato waxooda ay noqdaan referral wixii inta laga waayo baaritaan inta ma laha dhakhtarka baaritaan uu qor xag ugu diro daawada inta laga waayo in xagga loo diro shaqadooda ay naftooda u fududaato marka waxaan rabnaa in la wada shaqeeyo dadka walaal waa ehel waa la isku baahanahay siyaasad horteeda la noolaa haddana waa la noolaan siyaasad horteeda la isku baahana waana la isku baahan meesha waxaa laga yaabaa 5 sano walbo ama 10 sano walbo qof inuu imaado laakiin qof walbo wax qabadkiisa iyo wuxuu qabto un baa la isweydiin kuuraan nin walbo jeebkiisu ku jira marka laakiin nin walbo sidoo dadka soo doortay ummadda soo dooratay inay u doorteen inay wax u qabat meeshaas joogo wax u soo qabtaan inuu ka shaqeeyo wax qabadka iyo baahida meesha un baa la rabaa intaas muhiim ah midaas yaa muhiim ah marka waa mahadsantiin waqti dambe aan joognaa waqti dambe hadalka ma badinay waa imaan doonaa isbitaalkana u keen doonaa equipment furnitures aan u keen doonaa waxyaalo fara badan labeling la sameyn doonaa isbitaalkan magaciisa dhikaarja lagu qori doonaa waxyaalo fara badan aan meeshan ka qabanay insha Allah taala soo chief ku sheegay fence amal fence waan raadinaynaa MB waa jiraa meesha woman reeba jirtaa waxaan dhaynaa bar isbitaalka iyaga dhakhtar waan keennay intan ka dambe iyo wixii intan loo isbitaalka u sii baahan yahay wax nooga qabta marka insha Allah taala hadalka waan soo gabagabeynay mudnaanta koowaadna Ilaahay subhanahu wa ta'ala askal midda labaadna county government askal waxaan u maleynay ninka meesha governor ka dadaal fara badan uu muujiyo asaga naftiisa sababtoo dhakhtarin ma jirin meeshan 13 sano dhakhtarin ma jirin 13 sano dhakhtar ma la qorin laakiin asaga hal mar ilaa 200 dhakhtarin qore 200 asaga uu qor anaga 5 baan ka soo qaadanay anaga 5 baan ka soo qaadanay marka mudnaanta asaga askala sababtoo asaga uu dhakhtar buu diidi lahaa inuu qoro ana dhakhtar ma maanta heleen maana heleen marka waa wala shaqeynayna baahida dhikaarja waan iga maqanaa laakiin baahida habeena dhaar baahida meesha una ogsoonaa mala dhaho qof bil aadanka wuxuu ku maqan markuu umaado muxuu keen baa la dhaha aniga waan iga maqnaa laakiin maanta waxaa la imaaday wax 10 sano 13 sano imaanin baa maanta la imaaday wax labada nin iga horeeyeen keen waayeen baa aniga keenay marka insha Allah taala wixii hadda ka dambana wala shaqeynayna chiefkana waa wala shaqeynaa committee halkan waa wala shaqeynaa marka shaqo fiican baa meesha ka haynaa xamaleen shaqada ana ahayo ma umaleynay qof soomeyn doono ama soo sameeyay inay jirto sababta for example hadan soo qaadano dhikaarja ward aniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay sababtiisa iyo sabab ana aan leey 24 qof mishaar ka qaadata bil walba meeshan waa sabab Ilaahay buu sabab u noqtay laakiin Ilaahay ka soo sokow sababtayda ku helay nin walba ma ha yaraato 7 midka u yar 7,600 bisha soo dhicay kuwa ka badan baa u soo dhicay sababteedana ana iskale inta in ka badan inaan qabanna insha Allah taala rajeynayna
dhalinyaro fara badan oo meeshan wax barteen bay joogaan waxaan leeyahay iskuulkan hadda dhig harja macallimiin buu u baahan yahay ECDs u baahan yihiin community-ga ayaga la rabaa inay isqaamaan oo wiilashooda akhristaan meeshan joogaan hatta dawladda wax laga waayay bar ayaga inay wajaabkooda wax iskaga guraan oo dhakhtar meeshan eegayaan mashiintaas laku arrin la imaado waa la jabsaday yaqa qof meeshan noo joogta baahida mashiintaas haddii maanta ilaahay mana tusiyo awaarta bir hore aan soo marnay soo mar laha ee nagu dhici lahayd intaan aadi lahayn marka nin walba xil ha saaro nin walba waxa meeshan ku yaalo ilaahay ka soo sokow adaa mas'uulka anagayna kala gaarsan joognaa biyaha webiga cabna hadhow awaar inta ka dhacdo adiga waxa u baahan tahay waa booyad laakiin boholkaada meesha ku yaala oo bari ka maalin aashadan karto haddii adiga qof aa ku sii daaso wuxuu rabo ka samaysto soo dhibkeeda ma laha boholkaas waxa la dhigi karja inigu nigu dhow kubis iniga niga dhowda dawladda u hore laba wiil baa laga qore dawladda cali binow warqada la siiyay way suurto wax mishaar siiyay la way dawladdan anaga aan la shaqeynayno dawlad cawda qama waa dawlad cawlahan waxaan ku leenahay wax barya amba wax ku leenahay wax qasab aan ku leenahay mal because waxaan ku soo darsan malaha dawladda ninka anaga aan soo dhisna u dhacay marka insha Allah isqaawa chiefkana oo wala hadalne iniga naftiina community-ga wala hadla fadhiista wax walbo initiative walbo ama program walbo meesha laga qabanay waa la sheegay waxaas laga qaban waxaan ku soo darsan karaa ku soo darsada marka inigana waxaan rabaa wixii community ahaan u soo fadhiisateen war anaga waxaan baan keennay adimeeshu maxaan ugu dar in la dhaho anagana wixii marka tabartayda oo marka aan awoodo inaan ku daro waan ku dari marka waa mahadsantiin boqolkiiba boqol waa mahadsantiin intan in ka badan baa yaa mudantiin in la qabto intan in ka badan insha Allah ta'ala waan qaban doonaa haduu ilaahay waqtiga na siiyo meeshana waxaan rajaynaynaa inay shidmato waxaan leeyahay waa magaalada hasha ugu population badan inta la fiiriyo inta warkan oo maanta la soo istaago dadka laga weynaynin marka xana in naftiina dhakhtarka la shaqeeya dhakhtarka ma qala shaqo meeshan guddiga laga dhisi aniga hadana waa ordi laba wiil oo kala ama saddex qof oo kala qorina shaqaalaha yar jira oo isbitaalaha loogu talagalay shaqaalaha yar intuu ka imaanay koosan ninka magaala laga keenay ama haajimay ka imaam ama uftis ka imaade meeshan ma laga qoray waxa laga qori waa dadka deegaanka degan Soomaan marka bar aan ka dhigna xoolaha anaga aan leenahay aan ka dhigo dhakhtarkan aan la shaqeyn wiil aad u qiimo badan waa wiilkan dhakhtarka aad u qiimo badan asoo weliga arkin dhig harja arkin intee ku taala arkin intee taha arkin malaamiyo xoolaha loojimo weyn ma ku yaalaan dhaarta hore shawa ma lagu qabaystaa wala dhig harja Soomaa garan weliga ma arkin marka la dhig harja uu ku qancay inuu ummadda wax u qabto marka insha Allah ta'ala maghrib salaadana haysa waan tukanaynay waa maasantiin hadalka saasan ku soo